الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وحين كشك دونا قصدي مسيح الدجال نبي عليه الصلاة والسلام أيام مالين دادكودان اسكسو كلميي markay soo xaadireen salaadii ayuu dujiyay kadib salaadii markuu ka baxay wuxuu ku fadhiistay minbarka asigoo dhoola cadeynayo qoslayo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuuna yiri qof walba oo idin kamida saxaabo hal laazinta makaanka ku dukatay aysan ka tagin kadib nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri war ma garanaysaan maanta waxaan idin kulmiyay saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam si aadaabiyo usluub leh waxay ku dhaheen إلهي رسولك يسون باقرناي نبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول يري ورمانا إذن كل ما أنت إنا فرح قليان بينا عبسيه لكن وحن إذن كل ميي نين كان لقيا تميم الداري ونين كريستنا أما نصرانية ويمد ويلبا يعتمد دين الإسلام كايو نقاطي وحونا يشيك شاكو وفقصل هذا كور من إذن كشيك أو مسيح الدجال هيد تميم بن أوس الداري أي شيكدي كبلا وحين كورنيت سفينة البحر وحلو يقانو دون تبدل وراعو وحين دمين صدنين عيين وهين أو هير لقم يجلام كسو جيدو وحان وغود ديلا موجديه بدا مدبل عيان بدا دحديدا كجرني كدبان وحان أرقني جزيرة halkii jasiirada ayaan aadnay xilli qoraxda sii dhacaysay markaynu tagnay aynu doonta qarkeeda ku fadhiisano qaarkeena jasiirada ay galeen isla markiiba waxaan la kulanay daabad aad u weyn tiimih badanna korkeeda saaran yahay aan la kala garanayn meesha wajigeeda meesha gadaasheeda ah tinta saaran aaway markaas waxaan ku dhaanay war hoogto war maxaa ahayd adigu waxay nagu tii aniga waxa la yiraahdaa jasaasa niman yahow ordo baxa oo u taga ninkaas guriga ku jiro arinkeena iyo qabarkeena hilib iyo shaq ayuu qabaahay tamiim wuxuu yiri markay magacaawda nin ay tiri waan argagaxnay waxaan u qaadanay inay sheedaamad tahay markaasaan degdegno cararnay gurigii ay noo tilmaamtay aan tagnay waqtigaan tagnay waxaan u tagnay nin aad u weyn insaan la arka midka ugu weyn oo khalqiga ilaahay subxaanahu wa ta'aala abuuray xarga ayaa ku xirxirnaa labadiisa gacmood waxay ku xirxirnaayeen luqmihiisa ayay ku xirnaayeen isla markii waxaan ku dhahnay war hooge adigana maxaa ahayd markaasuu ugu yiri adinkana ii warama aniga akhbaartii waa idin siin doonaa oo adinka waxa tiin ii sheega waxaan ku dhahnay anaga waxaynu nahay dad oo carabta kamid ah waxaynu soo kornay doonta badda ayaynu soo kornay waxaan ugu dheedheelay muujadii badda muddo bil ayaynu jahwareer aan ku jirnay waxaynu soo galnay jasiiradan isla jasiiradan la yaaban ku aragnayo daabad aad u weyn timo badan korkeeda saaran yihiin madow ayaan la kulanay waxaynu ugu tiri waxaan ahay jasaaso jaayuusad ee ordo qasda ninka guriga jooga waan ku soo qaabilnay xaal aan aha kuwa degdegayo arinkaagan u soo degdegnay wuxuu ugu yiri war waxaad iga warantaan beertii bustaana ku taalay war mir ma leedahay oo miro ma keentay timirtii ku taalay waxaan ku dhaal nacam ha timir ayay keentay wuxuu nagu yiri waxa dhawaatay inaysan mardaba timir ka soo bixin wuxuu nagu yiri iga warama beertii badii yareed dabariya la dhigi jiray war biyo ma leedahay waxaan ku dhaal ha biyaheedu waliba aad ay u fara badan yihiin wuxuu nagu yiri biyaheedu waxa dhawaaday inay mar dhow faaruqaan oo baaba'aan ee waxaad iga warantaan aynu raqad meesha la yiraahdo ishaasi biyo ma lahayd oo ehelkeedu ma waraabsan jireen oo beeraha ma waraabsadaan waxaan ku dhahnay nacam ha waliba biyo fara badan ay leeyihiin ehelkeeduna way waraabsadaan oo biyaheeday waraabsadaan markaasuu yiri waxaad iga warantaan nabigii ummiga ahaa muxuu sameeyay markaasaan ku dhahnay nabi ilaahi muhammad alayhi salaatu wasalaam waxa laga soo bariyo laga soo saaray magaaladii Mako wuxuuna soo degay magaalada Yathrib ayuu soo degay magaalada Madiina ah markaasuu ku yiri war carab ma la dagaalantay waxaan ku dhahnay ha carab ayaa la dagaalantay markaasuu yiri muxuu sameeyay nabiga alayhi salaatu wasalaam kuwa xaqiisa soo aadana wuu qaabilay kuwa la dagaalamana waa iska soo tagay badankood laakiin carab way diideen wuxuu ku yiri waxa u khayr badneed inay raacaan laakiin arinkeyga waxaan idinka warmi doono asiga ayaa idin sheegi doono aniga waxa la yiraahdaa masiixu dajaal waxaan mari doonaa dhulka oo dhan sida dartiisa yumsaxul arda fi muddati yasiir ayaa masiix loogu bixiyay muddo yar ayuu wuxuu ku mari doonaa 40 dhan dhulka ayuu ku mari doonaa waxaa dhawaatay
in laysoo saaro oon soo baxo si aan dhulka u fasahaadiyo, mana ka tegi doono kharyo ilaa waan geli doonaa muddo 40 maalmood iyo habeenadood la mid ah. beled ma jiro ilaa masiixu dajaal wuu geli doonaa khayra maka walmadiina ayaa nabiga yiri calayhi salaatu wasalaam. masiixu dajaal xilligiisa aad ay qariib u tahay, soo bixitaankiisana way dhowdahay. nabiga calayhi salaatu wasalaam xilligiisa ayaa la ogaaday. sidaa darteed nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam rabbi ayuu ka magangeli jiray oo salaad walba markuu dukado ataxiyaadka dambe ayuu dhihi jiray allahumma innii acuudu bika min fitnati almasiixi dajaal. qof walba muslimana waxaa waajib ku ah in ilaahay subxaanahu watacaala uu ka baryo inuusan la kulansiinin, maxaa yeelay masiixu dajaal wuxuu sheegan doonaa rabbiga ayaan ahay u dhihi doonaa. dadka wuxuu ku nasarcayn doonaa qabriga gudaha dadka ku jiro ayuu kula hadalsiinaya, markaasay ku leeyihiin raac waa rabbi. shayaadiin badan ayaa la shaqayn doonto, xataa wuxuu awood u heli doonaa cirka inuu amro yiraahdo biyo soo daa, dhulka uu ku soo daadiyo, dhulka isla markii badarka ay ka soo baxaan oo badarkii isla markii la gurto ayuu awood u leeyahay. xarta cannada yar ka salaaha isla markii way uureysanaysaa, way dhalaysaa, caana bay yeelanaysaa. marka fitantiisu aad bay u badan tahay. walaalka muslimka ah adigana ilaahay subxaanahu watacaala ka badi inuusan kula kulansiinin. ilaahayna waxaa weydiisataa fitnada masiixu dajaal intaan kaas la gaarin. ka suka fataatiin badan ayaa jirto. ilaahay subxaanahu watacaala ka magangal qofka raa'idka ah amba qofka dadka u baxa been uma soo sheegay helkii ee meesha xaalada daran jirto ayuu u soo sheegaa. tamiim bin awsna wuxuu noo soo sheegay masiixu dajaal inuu dunida aan ku noolnahay meel ka mid ah uu ku nool yahay. marka insha allahu tacaala fartiinta hadday ku soo gaarto walaal sii gudbi oo walaalaha muslimiinta ah aanan ogeyn sii gaarsii. wajazaakum allahu khayr. ilaahayow rabbiyow raxmaanow dhammaanteen naga badbaadiy masiixu dajaal fitantiisa iyo shartiisa.